inta aynu muuqaalkeena gudaha u galin ha ilaawin inaad janaalka subscribe saarto fiidiyoona like saar mahadsanid. Filimkeena maanta waxa uu ku bilaamayaa gaari ku socda wadada si kediisa u istaagay oo bisad ka soo degday oo saaxiibadiisa way iskaga tageen way socdaan kadibna bisadu si degdeg ah ayay ugu daba carartay balse nasiib daro ma uusan u qaban balse gaari ayaa dardari lahaa laakiin way ka badbaaday. Kastaba haatee bisadu way duulaysaa oo way ku duldhacaysaa gaariga dushiisa oo iska joogto basadii maskiinka ahayd oo kolba meel iska tuuraysay ilaa way ku dhammaanaysaa kursiga hoostiisa. Iyo waqtigaas eeyar baa u yimid oo u soo dhawaaday oo ku yidhi saaxiibadiisa way iskaga tageen maxaa yeelay waxay doonayeen inay isaga dhaqaajiyaan. Kadibna eeygu wuu ka tagayaa oo wuu socdaa oo wuu u tagayaa ninkii lahaa oo isla markiiba bisadu aragtay. Bisada thani wuu doodaa si uu weydiisto gargaarkiisii oo waxa uu arkay isagoo guri sii galayo isna dhaqso ayuu kasii dabagalay. Markuu eeyga helay intuu eegay ayuu aad u habsaday markaas ayuu dhaqso u waray wuuna galay tubo halkaas yaalay laakiin eeyguna wuu ka bixi karaa halkan. Waxa uu dhexda kaga jaray tubooyin waaweyn laakiin waxa uu nasiib u yeeshay eeyga meesha uu ka sugan yahay wuu garanayaa oo haddana bisadu waxay ku socdaa xawaaraha sare ee geedaha dhexdooda. Wuxuu isku dayay inuu ka baxsado isaga laakiin labadoodaba waxiisa joogaan. Si kastaba haatee waxaa jira eey cabsanayo argagaxsan oo araray si degdeg ah markii bisadu u timaado oo ay gadaal eegto aad ayay u naxday. Waxay isku aragtay guri cabsaday hortiisa laakiin wuu go'aansaday inuu galo ugu baaray laakiin markuu soo dhawaaday uu ogaaday inuusan waxba helin. Waqtigan wuu eegayaa laba xamaam ayaa dabaqa ka soo galay isna wuu go'aansaday iyaga oo kale ayuu u dhaqmayaa oo geedkii buu fuulay oo dul socda. Laantii ayaa si taxaddar leh ugu booday oo dhinaca u dhaafay. Midka labaad waxa uu ka soo qabayaa daaqadda oo bilaabay inuu meesha sahan qaaday oo la yaabay tirada waxyaalaha. Waxa uu arkay geed qalab samaynayo waxa uu loo adeegsadaa ciyaaraha sirka waxayna keentaa bisada laga soo bilaabo ciyaar qaar ah sida geedkiisa leenta ayaa si lama filaan ah u dhaqaaqay u cabsi geliyay. Bisada way ka cabsatay dhulka ayay ku dhacday oo kolba meel u ordaysay wax kastoo ay aragto way ka naxsan tahay ilaa uu jir yimaado oo ay dareento joogistiisii oo ay bilowdo eegistiisii. Markaasay bisadu ku dhacday dhulka ay iibto oo ay dhaqaaqi weyday. Dabadeedna wuu arkay jiirka oo argagaxaya oo weydiistay inaysan cunin oo markay bisadu isku dayday inay jiirka u qalbi qaboojiso laakiin jiirkii wuu araray. Markaasay bisadii ka daba carartay oo ay ka codsatay inay isaga sugto. Labadoodaba waxay u dhaadhaceen dabaqa hoose halkaas bisadu waxaa ku dhacay fallaaro badan oo ku hayran laakiin iyadoo taasi jirto jiirkii ayuu dib u soo laabtay laakiin bisadu way ka daba carartay. Waxay rabtay inay cunto laakiin waxay u dhaadhaceen dabaqa hoose. Wuxuu ku sugayaa albaabka hortiisa kadibna wuu iman doonaa. Baqilaha muuqaalka cabsida leh ayaa u muuqda inuu u hanjabayo bisada. Caadada ayuu ka qabanayaa oo jiirkii baa yimid waxaana garanaynaa bakaylaha in magaciisa la yiraahdo Jack laakiin bisadu way damcday inay cunto laakiin bisadu ayaa la yaabtay hadalkoodii. Waxay u sharaxday inay jiirka cunin isku daygan ahaa mid been ah. Waxaan ogaanaynaa in jiirka magaciisa la yiraahdo Meg. Waxa uu u egyahay inuu aad uga baqay oo albaabka bisadu ku furay. Jiirku wuu ka baxay guriga. Jack wuxuu bilaabay inuu cabsiiyo bisada. Waxa uu ku celceliyay in aanu mar dambe halkan imaan doonin. Markaas ayuu gurigii ka soo saartay oo dariiqa ku tuuray. Waxaan aragnaa bisadii oo keligeeda soconaysa in muddo ah. Waxay u muuqataa mid murugo badan oo aan ahayn. Wuxuu yaqaanaa meesha uu aado si uu u dhaqmo laakiin markan uu bilaabay inuu roobka ka dhuunto wuxuu ku dhacay dhulka hoose guri isku mid ah oo halkaas ayuu bilaabay inuu sahamiyo meesha. Waxa uu maqlay dhawaaq yaab leh. Waxa uu aadayaa dhanka isha codka. Tani waa si uu ogaado qofka uu yahay iyo in runtii arko. Odaya oo la yiraahdo Lawrence ayaa hagaajinaya mishiin qaar ah. Waxaa la hubsay in ay jiraan koox weyn oo ku xeeran xayawaanka iyo ciyaaraha. Markii bisadu aragto Meg, Jack iyo Lawrence oo iska fadhiya si degdeg ah ayay isku qarinaysaa oo wuxuu maqlay isaga oo ka hadlayo ciyaarihiisa. Waxayna aragnaa isagoo robot ka samaynayo lamba koronto yaqaan magaciisa la yiraahdo Odin. Aad buu u faraxsan yahay. Wuxuu u tagayaa oo ag fadhiista inta kale ee alaabta lagu ciyaaro oo uu bilaabay. Lawrence wuxuu u sheegay wax ku saabsan dalabyada muhiimka ah. Wuxuu
soo bandhigay adduunka oo dhan, wayna u muuqataa alaabta uu ka ciyaaro aad bay ugu faraxsan yihiin. Si lama filaan ah ayay u qabsadeen markay dhawaaq maqleen. Garaac xoog leh ayaa albaabka lagu garaacay, waxayna fahmeen inay tani tahay ugaadh. Tuug ayaa yimid u dhaco guriga, kadibna Lawrence wuxuu ka codsaday inay si degdeg ah u dhuuntaan oo u sheegay inuu isagu ka hor imaan doono tuugga. Si lama filaan ah guriga ayuu soo galay oo damcay inuu albaabka qolka furo. Waqtigaas Lawrence wuu hirgeliyay qorshihiisii, wuxuuna ku yiray sanduuqiisii qiyaamada. Laakiin markaa wuu yaabay markii abtigiisii oo magaciisa la oran jiray Daniel uu helay. Aad ayuu u hanaagay. Lawrence wuxuu bilaabay inuu raadiyo furihii sanduuqa. Wuxuu weydiiyay sababta waqtiga halkan u yimaaday. Daniel ayaa u sheegay in shirkadda marta ay u yeertay sababtoo ah wuxuu iloobay inuu biyo bisha korontada, iyo waqtigaas bisadu weli way dhuumanaysaa si aanu qofna u arkin isaga. In muddo ah kadib Lawrence ayuu furihii helay oo Daniel dibadda u saaray oo sanduuqiina ka soo baxay. Iyo ka hor inta aanu Daniel dhidhison, bisadu way badbaadisaa isaga daqiiqada ugu dambeysa, wayna sii socotaa. Daniel wuxuu la hadlayaa Lawrence wuxuuna kula taliyay inuu iibiyo guriga oo u soo jeediyay inuu guriga ku noolaan karin. Si lama filaan ah Daniel ayaa u muuqday isaga calaamadaha daalka, wuxuuna u sheegay Lawrence inay tani tahay inay ku jirto bisad guriga dhexdiisa, sababtoo ah wuxuu u nugul yahay isaga. Wuxuu fahamsiiyay inuusan halkan sii joogi karin wax badan.